السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada fiidiyowga hala dhameysto share dhaha subscribe saara like saara asxaabteeda maanta maxaa idin wadaa faa'iidada ay toonta leedahay ayaan idinkaga sheekeyn rabaa toonta waa ogtihiin faa'iido badan ay leedahay toon ama tuun qofba suu u fahmaayo marka haddaba maxay tartaa toontu maxay siyaadisaa ama xoojisaa maxay daawo u tahay maxay yareysaa maxay u daran tahay goormee la cunaa sidee loo cunaa maxay dishaa ama ka taqalustaa intaas ba inaan ka hadlaa rabaa oo toonta ku saabsan marka hore waxaan soo qaadanayaa maxay tartaa toontu waxay dejisaa dhiigkarka waxay dejisaa kolestaroolka waxay dejisaa neerfahay dejisaa maxay siyaadisaa ama xoojisaa toontu waxay xoojisaa xusuusta waxay xoojisaa difaaca jirka waxay siyaadisaa hurdada qofkii hurdada ku yar tahay toonta ha cuno everyday waa inuu cunaa toon hal xabo cuntada ku darsadaa marka hadda waxaan haddana maxay xoojisaa socodka dhiigga gaar ahaan xididada dhiiggaaga ma fadhiisanayo wuu shaqaynayaa xididada dhiigga way gudbinayaan toonta haddaa laasintid everyday aa cuntid maxay daawo u tahay marka hargabka waxay daawo u tahay hargabka soo noqnoqda waxay daawo u tahay cudurrada wadnaha waxay daawo u tahay cudurrada lafaha waxay daawo u tahay cambaarta iyo finanka waxay daawo u tahay cudurrada maqaarka waxay daawo u tahay baabasiirka intaasoo wax ay daawo u tahay toonta haddaba maxay yareysaa toonta waxay yareysaa labalabada waxay yareysaa muuqaalka gaarka ah qofka da-diisi inuu ka weyn yahay loo maleeyo waxay yareysaa muuqaalka gaar ahaan dadka u muuqda inay da-dooda ka weyn yihiin waxay yareysaa miisaanka iyo xeerta caloosha waxay yareysaa lafa xanuunka intaasoo dhan waa faa'iido ay toontu leedahay haddaba maxay u taran tahay toonta waxay u daran tahay qofka beerka ka xanuunsan waxay u daran tahay qofka dhiig baxaya toonta lama siiyo loomana dhaweeyo mid kalena waa idiin sheegayaa asxaabta haweeneyda uurka markay leedahay toonta inay cunto ma ahan cuntada waa ku darsan kartaa laakiin sideeda inaa u cuntid ma aha dhakhtarkaaga la soo tasho haddaa ka fursan weysa inaa isticmaasho marka goormee la cunaa waaye markan waxaa la cunaa subaxdii aroortii quraacda ka hor inta uu qofka baahan yahay waa inuu cunaa maalintii hal mar aa la ogol yahay inaa cuntid waa iyadoo toonta keliya waxaan ka hadlaya ma aha cuntada in la ogol yahay xilliga artaa ku darsan kartaa sidee loo cunaa waxaa u cuni kartaa sideeda hal xabo intaa fiiqdid sideeda ayadoo waad laqi kartaa ama waad jijabin kartaa haddii kale waa inaad sida kaniiniga intaa u yaryareysaa saasoo laba siba waa sideedana waa u laqi kartaa intaa jarjartid sida kaniini si yaryar aa u jarjartidna waa u laqi kartaa oo biyo ku kabatid ama sideedaba aad ku jajabisid oo laqdid sidaasaa loo cunaa maxay dishaa marka ama ka taqalustaa waxay dishaa bakteeriyada jirka dhan ku jirta waxay dishaa fayruska waxay dishaa gooryaamada caloosha gooryaan hadduu ku wareeriyo kale aroortii saas aa u cuntid waa ka nasanaysaa waa ka caafimaadeysaa marka asxaabteyda intaasaa kusoo gabagabeynayaa cashirkeygii maantay aan toonta uga hadlayay waxyaabaha ay tarto waxay u daran tahay waxay faa'iido u leedahay waxay disho gooryaanka aad bay u dishaa aroortii haddaa isticmaashid adoo waxbana cun marka asxaabteeda kheyr baa idiin dhaafay bye bye subscribe saara like saara share gareeya